siyaasadda waa la isturtuuri annagana dhagaxaan baan lagu soo turtuura annaguna laba saddex dhagax waan tuurayna marka waxaad arkaysaa dhagaxa halka yaga dhagax uu ka yar kulul yahay dhagaxyada kale la soo turtuurayo anu shakhsiyan iyo maayirada magaalooyinku siyaasadda dhexdhexaad kama ah adeega dhexdhexaadkii qof urur kala oo de magaalada intuu adeeg u soo doontay adeeg loo diiday ma jiro nin la yiri xisbi kala tahay qashinka lagama qaadayna ma jiro nin xisbi kala tahay biyo laguma siinayo la yiri ma jirto laakiin magaalada markaan hogaaminayno waxaan u baahanahay in baajaajta aan ka baxno imsa sana kaga baxayna 5 sano soo socota 10 sano soo socota konton iyo koow baajaaj aan hayno waa baajaajta dhalinyaradeenu wadatay dhibaato lagu geystay falkii u dambeysay dhalinyaradii geysaysa baajaaj la yaalbay ahaayeen Soomaali bay ahaayeen cid kala maayn Shabeella Bank Commercial Bank Awash Bank Dashin Bank diyaar bay yihiin in gaadiid ay keenaan baajaajta qofku lacagtu ku iibsanayo haddii 400 kun oo tahay inuu 400 kun u save garaysto qofku 400 kun 400 kale inay dawladdu ka kabto xillina uu isagu iskaga soo celiyay in laga shaqeeyo wadada waxa socda 200 oo baajaaj 200 oo qof ay wadaan baska city basku waa hal bas kaliya 30 qof wada guud ahaan waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex arrimood oo kooban arrimahaas oo maalmihii u dambeeyay ay bulshadu ka soo jeedinayeen cabashooyin kala duwan kulli hogaaminta deegaankuna maalmaha soo socda si faahfaahsan bay iyaguna uga hadli doonaan arinta goobaad oo arinta la xiriirta guud ahaan arrimaha gaadiidka magaalooyinka iyo qiimaha shidaalka oo isbedelaya waxaad ogtihiin magaalada Jijjiga maamulka magaalada Jijjiga wuxuu soo saaray go'aan la xiriira maareynta gaadiidka magaalooyinka caasimadii waxay leeyihiin waxa la yiraahdo transportation management system kaasoo lagu maamulo guud ahaan isku socodka magaalooyinka si loo fududeeyo adeega guud ee magaalooyinka taanaga ka duuleyna waxa la soo saaray in baajaajta yaryar ayna mari karin wadooyinka corridorka ama wadooyinka uu ka socdo mashruuca corridorka saddex arrimood sababtood ama saddex arrimood iyagoo laga go'leeyahay kow gaadiidkaas tiradiisu aad bay u badan tahay ilaa 22 kun oo baajaaj ba magaalada Jigjiga xilligan jooga laba waxay abuureen jam ama culays wadooyinka guud ahaan arinta labaadna wadooyinkaas waxa la bedelay standardigooga ama darajada ay leeyihiin oo korbe u kaceen arinta afraadna waxa ka socda dhismayaal kala duwan taa iyadoo laga duulayo baajaajleyda yaryar oo runtii adeegyada ay dadka siinayaan ay yar yihiin markaan leenahay ay yar yihiin waxa u shaqeeyaan nidaamka contractkana waxay wadaan hal qof saasoo kala mala istaano ay ka baxaan ee waa kuwa wareega waxa laga yaabaa 200 baajaaj oo aan qof wadin inay magaalada dhex wareegayaan oo ay sameynayaan jam ay sameynayaan halka magaalooyinka kale ay baajaajyadu meel ay taagan yihiin ama ha yaraadaan ama ha waaweynaadaan ama force ahaadaan ama baajaajta yarar ahaadaan saasoo kale tirada baajaajta kor u kacday waxa iyadana la geliyay nidaamka taraha ama inay ku shaqeeyaan waxa shift la yiraahdo maalina ay shaqeeysan tirada dhiman maalina ay shaqeyso tirada ifanka iyo order ay kala shaqeeyaan dhibaatooyinka ugu badan ee keenay arrimaha waxa weeyaan tirada baajaajtu magaalada aad bay u sii badanaysaa iyadoo la joojiyay taarikada oo waxa soo galay magaalada baajaajyo aan ka shaqeyn jirin hadda ka hor magaalada tusaalahan magaalooyinka Goday Dhagaxbuur Qabridaar Harooriis Shabeelley Qabri Bayax Wajaale dhammaan taariikooyinkaas waxay ku soo noqdeen magaalada Jigjiga tusaalahan 250 taariikho oo kuwii ugu dambeeyay Shabeelley laga bixiyay kuwii Qabri Bayax laga bixiyay kuwii Goday laga bixiyay baajaajyadaas waxay ku sharciyeysan yihiin magaalooyinka aan kor ku soo sheegay bay ku sharciyeysan yihiin laakiin waxay ku soo noqdeen ka shaqeynayaan xilligan maamulka magaalada Jijjiga ka soo shaqeynayaan taariikhda maamulka magaalada Jijjiga 16 kun ma dhaafto laakiin magaalada hadda waad arki kartaan baajaajta dhex socota ilaa 22 kun iyo socota 16 ilaa 22 inta u dhaxaysan waxay ka dhigan tahay magaalada Jijjiga baajaaj sharciyan liisankeeda ama ka qaadatay taariikhda magaalada Jijjiga maaha caqabadaas iyagoo laga duulayo waxa la isla qaatay in wadada weyn iyo wadada Kaaramar Hospital ayna baajaajta yaryar marin mustaqbalkana baajaajyada aan magaalada Jigjiga ka mid ka ahayn ama aan sharciga u haysanin magaalooyinka sharciga u lahaayeen ay ku noqdaan tusaale waxaad arkaysaa taariikhda Harar Dirdhaba taariikooyin Dhagaxbuur Qabridaar iyo magaalooyinka deegaanka fiiq loo qaatay kuwaasna in sida loo maareeyo waxaan isla qaadanay baajaajta waaweyn force la yiraahdo maadaama dad tira badan ay qaadayso in iyadu wadooyinka waaweyn meeshii loogu talagalay ay mari karto shalay toole waxa dhacay dhacdooyin
dhanka isku dhac xagga ciidanka iyo bajaajlayaasha waxay sameeyeen sharci darro la xiriidha inay booliska taraafikada u gacan qaadan ilaa 4 qof oo booliska taraafikada way soo gaadhay dhaawac booliska taraafikaduna waxay xidheen guud ahaan isgoysyada magaalada ay ka tallaabaan bajaajyada dadaal badan oo sameeyno oo la shiray dhalinyarada bajaajyada wata iyo ciidanka taraafikada waxaan xalinay arrimahaas maanta wixii ka dambeeya bajaaj kas tayaryar ma mari karto wadada dhakhtarka iyo wadada weyn ee magaalada kala qaybisa kaliya way ka gudbi karaan waxay ka gudbi karaan isgoys kasta waxay u gudbi karaan koonfur iyo waqooyi way kala gudbi karaan ama bari iyo galbeed wadada dhakhtarka laakiin ma dhaxmari karaan saasoo kala taraha inay ku shaqeeyaan oo maalin kasta tarahaas oo ku shaqeeyaan taraha doorkii hore markaan bilownay caqabadaha ugu waaweyn kala kulanay waxa kamid ah in taariikh been abuur la sameeyo in taariikhda la kala bedesho oo saalaan qofku wuxuu leeyahay taariikho numberka dhiman iyo ka buuxa buu sameeysanaya taariikh in geerishada lagu sameeyo tu been abuur in lagu dhajiyo tu bajaaj hore ay lahayd in lagu soo dhiso arrimahaasna runtii waxaad ogtiin in nabadgelyada darrada deegaanka ay dhibaato badan ay ka geysanayaan cid kastoo arrimaha ku dhiirato wax laga qaadi doona tallaabo adag oo sharciga waafaqsan markaan ka hadlayno taraha bajaajyada iyo in wadooyinka waaweyn bajaajta laga mamnuuco ma wax jigjiga oo laga bilaabay baa mise dal ahaan way ka jirtaan inaan eegno muhiim weeyaan dalkeena magaalada ugu inoogu dhow Dirdhaba wadooyinka waaweyn ma maraan bajaajyadu saasoo kale waxay ku shaqeeyaan nidaamka shiftiga la yiraahdo magaalada Naazireed wadooyinka waaweyn bajaaj uma marto saasoo kale waxay ku shaqeeyaan shift Hawaasa Bahardar dhamaan Addis Ababa santarka magaalada oo dhan waxa laga mamnuucay in bajaajtu ayna mari karin marka nolosha bulshada ay isbedelaysa dhaqaalaha bulshada isbedelaya baahida bulshada isbedelaysa markasta waxay keenaysaa in la soo saaro shuruuc cusub in la soo saaro nidaam iyo system cusub oo magaalada lagu maamulayo waxaan rajeynayaa dhalinyarada qiimaha badan ee ku shaqeysata bajaajyadaasi inay ka shaqeeyaan darafyada magaalada oo ina soo marin wadooyinka waaweyn dad badan waxay isweydiinayaan maxaa loo hayaa alternative wadooyinka waaweyn dadka maraya waxa la isla qaatay basas kuwa leedka ku shaqeeya in magaalada ay soo galaan ilaa 20 bas oo dadka qaado adeega bixiya 2 city bus oo ka sii shaqeynaya in la sii xoojiyo 3 gaadiidka forsiga la yiraahdo inuu ka shaqeeyo 2 gaadiidka duugoobay ee manaariyaga ka baxa ee deegaanka meelihiisa kala duwan u goosha sida dhagax buur iyo jigjiga ama wajaali iyo jigjiga in shaqooyinka banaanka laga joojiyo magaalada centerkeeda ay ka shaqeeyaan baa la isla qaatay talooyinka iyo fursadaha kale aan hayno waa kuwaas weeyaan oo dadku ay isticmaali karaan mustaqbalka waxaan aaminsanahay hadii bajaajta laga saaro wadooyinka waaweyn in ganacsatadu ay awood u yeelan doonto inay maal gashadaan wadooyinka waaweyn oo gaadiid kale oo casri uu soo yimaado marka guud ahaan dhalinyaradu inay go'aan ka qaadataan yaan soo jeedinayna arinta labaad oo arinta nabadgelyada magaalada la xiriidha guud ahaan magaalada Jijjiga wax nabadgelya darra oo ka jirta ma jirto dadka inaan inta u sheegnaa rabnaa magaalada Jijjiga ma jirto nabadgelya darro ka jirta qofna lagu ma dilo waxa jira falal yar oo dhalinyarada magaaladu ay sameeyaan kuwaas marka laga ma dhigi karo issue weyn ama dhibaato weyn oo magaalada tan ka jirta laga ma dhigi karo nabadgelya darradaas waxay ka timaadaa dhalinyaro is abaabushay oo kuwa bajaajlayaasha u badan inay habeenkii dhacaan dadka in tuugo ay dadka dhacaan oo ay guryaha u dhacaan taasna waxa ahayd arrimo ama dhibaatooyin hadda ka horba jiray laakiin way soo xoogaysteen maxaa dadaal la sameeyay 51 bajaaj oo kuwa dadka lagu dhacaa waa la soo xareeyay gacanta dawladda ku jiraan dadkaana talaaba laga qaaday 120 tuug oo magaalada tan kuwii wax dhici jiray waa la soo qabtay sharciga la geeyay xukun bay heleen dhamaantoodna laga talaabo qaaday arinta saddexaad 90 tuug oo gacanta dawladda ku jira isla markaana ilaa imika eedeysanayaal oo aan xukun helin baa jira kuwaasna muddo dhow insha Allah in go'aan laga gaadho xukun ay helaan yaa la rajeynaya ta kale nidaamka magaalada ilaa hadda ka hor aan u maamuli jirnay waa nidaam manual ama booliska iyo tuugina si toos ah isku arkaan nidaam digital ama software ama camera iyo wax noocaas ay shaqeeyaan magaalada Jijjiga hadda kama jirin waad ogtiin mashruuca CC camerooyinka 14 kilomitir magaalada dhamaanaya maanta magaalada Jijjiga waxa lagu soo jeediyay software dadka u sahlayay in ay dambiyada magaalada ka dhacaya meel kasta si dhib yar ah soo report gareyn karaan su'aalaan xaafadda 13aad baa gabadh lagu kufsaday qofku inuu text message uu mobilkiisa ka soo diri karo uu oran karo halka waxa lagu kufsaday gabadh isla markaana boolisku si dhib yar uu xigto heli kara meeshaasna uu uga soo jawaabi karo in hoteelada magaalada dadka degaya dadka magaalada soo galaya kuwa ka baxayana si joogto ah loola socon karo
software noocaasaan develop garaynay muddo dhowna aan shaaca ka qaadi doona marka guud ahaan bulshada waxaan rabnaa inay nagala shaqeeyaan arrimahaas inay nagala shaqeeyaan markaan arrinta shidaalka iyo nabadgelyada iyo baajaajta ka hadlayno shacabku hadday ka qayb qaadan waayaan wax la xalin karaa ma jiro tusaale ahaan taarifka shidaalka waa la jaangooyey 114 riyaal baa lagu jaangooyey litirka benziinka shidaalka magaalada Jigjiga saasoo kale lacag gaaraysa 110 riyaal baa lagu jaangooyey shidaalka naaftada la yiraahdo qofka shacabka ee shubanaya waxa loo baahan yahay qiimaha dawladdu go'aamisay intuu u hogaansamo in qiimaha ku ka badan una bixin jaasta in badan taarifkan jaangoyna toobiyada dalkeena meelaha kala markaad aragto qiimaha dadku jaangooyay haduu baajaajlu ku ka badan inuu ka qaado isku dayo ama basku inuu ka qaabaadan haduu isku dayo waxay sameynayaan in cabasho soo jeediyaan inay darawalka inuu lacagta ka qaadaya badan ay ka hor yimaadaan in goobaha dawladda ay baajaajta ka report gareeyaan yiraahdaan baajaajtaas qiimo kale oo kii ka duwan bay naga qaaday kaalintaas qiimad kii ka baxsan bay shidaalka ku qaadaysa hadda maanta kaliya ilaa 5 kaalimood oo magaalada Jigjiga waa la xidhay waa laga talaabo qaaday waa kuwa qiimaha 300,000 oo riyaal baa lagu ganaaxay halka kaalinta qiimaha shidaalka ku tartay laakiin goobaha markaan booqano ee shaqada joojino ee ka talaabo qaadna kaalimaha dhalinyarada baajaadlayaasha selfiga ku jira way kula dagaalamayaan waxay ku oranayaan qiimaha anaga kan ku shubanayna idinka maxaad ka galeen daaya noo shubay halka uu qofkaas intuu ka dagaalamo oran la qiimihii dawladdu ay go'aamisay ku ka duwan baad ku shubaysaa saxna ma waxa kale oo jira dad shidaalka gacanta ku iibiya iminka waxaad maqlaysaa magaalada shidaalka 200 riyaal buu taagan yahay halku ka taagan yahay waa Highlandida lagu wareejinayo suuqa tuugada lagu iibinayo 200 riyaal maxaa ku geeyay meesha tuugada ku iibinayso maad ka shubatid kaalinta lafteedii baa waxay sameynaysaa inay dadka caagada inta ugu shubto ay suuqa madow inay ku sii iibiyaan oo lacag saartaan baa dhacaysa hadii ay shacabku ka qayb qaadan waayaan haday dadku ay report gareyn waayaan xaaladaha noocaas dawladdu kaligeed waxa ma qaban karto si wada jir inay shacabku uga qayb qaataan baan rabnaa arinta u dambaysa waa arinta biyaha iyo lightka magaalada maalmiin la soo dhaafay xadhkaha tiirasha waaweyn awaash waxoogaa marka la soo dhaafaba 7 tiiray ka dhaceen sad wada ogtiin media-gan ay la wadaageen warbaahinta dalka iyo hay'adda lightka taas waxay keentay biyaha magaalada Jigjiga inay yaraadaan guud ahaan Jigjiga 3 face biyaha ka cabta waa ci feedhacad iyo faafan intu waxay ku shaqeeyaan lightkii yaraaday wuxuu keenay lightkii la waayay wuxuu keenay in ceelasha sidii loogu talagalay biyaha u soo saari waayaan dhamaantood ma lahayn generator standby oo biyaha lagu soo riixo Jigjiga face oo faafana uu leeyahay 100% waajina uu leeyahay laakiin ceelasha magaalada 38 ceela iyo 4 ceel oo feedhacada ma ayna lahayn generatorada standby ee ku shaqeeya shidaalka taas waxay keentay magaalada in biyo yaraan baaxad laga dareemo dadku waxaan rabnaa inay fahmaan dhibaatada biyaha ee magaalada ka dhacday inay la xiriirtay dhibaatada lightka lama xiriidha mashruuca Jigjiga face 2 inuuna shaqeynin lama xiriidha adeegyadii kale biyo inayna sidii loogu talagalay u soconin laakiin caqabada ugu weyn ee la kulmay waxay ahayd dhanka lightka maadaama ceelashu ku shaqeynayeen shidaal 24 saac sidii loogu talagalay uma shaqeynin saasoo kale meelaha qaar waxaan jirin generatorada standby-ga aan ku shaqeeya dieselka ama shidaalka ku shaqeeya taas waxay keentay in cabasho biyo oo badan ay magaalada ka soo kacdo maalmaha soo socda waxaan rajaynaynaa si degdeg inay isku soo recover gareeyaan ama degdeg xal loogu helo dad badan ba waxay aaminsan yihiin in biyaha magaalada Jigjiga ay fail garoobeen ama 100% ayna shaqeeynin arinta waxba kama jiraan in badan baan ka hadalay mashruuca wajiga labaad ee Jigjiga biyaha magaalada Jigjiga soo gala 50% isaga bixiya 50% iskiimadii ama ceelashii hore sii jiray magaalada laga cabaa dhibaatada ugu weyn ee jirto waxa weeyaan biyihii hore ee Jigjiga yaa soo yaraaday sababtoo infrastructure-ka ceelashu way biyo yareeyeen saasoo kale waxa jirta guud ahaan discharge-ga ama biyaha laga helayo ceelashu inay yaraadeen waxaan u baahanahay degdeg inaan helo Jigjiga face 3 oo aan isleenahay 100% magaalada Jigjiga oo ka xaq qabtaraya biyaha markaan dhameystirayna mashruuca wajiga labaad ee Jigjiga ma aanan oran 100% Jigjiga biyo helaysa waxaan nidhi 52% Jigjiga biyo helaysa 52% way heshaa xilligan laakiin dhibaatooyinka jira waxa weeyaan 48% dadka ka Jigjiga jooga ma helaan wax biyo ama waxay la isticmaalaan 50% biyaha hela yey la isticmaalaan dadku inay saa u fahmaan weeyaan maxaa loo xaqibtir leeyahay biyaha Jigjiga waxa loo xaqibtir leeyahay miisaaniyad
12 bilyan ilaa 16 bilyan ay u baahan tahay jigjiga inay biyo dhammaystiran hesho taasna waad garan karaysaan dhaqaalaha dalkeena iyo deegaankeena inuuna qaadi karin dadaalo international level ama heer caalami iyo heer dal oo la sameeyay baa jira mustaqbalka in jawaabo degdeg ah laga helo waan rajaynayna arinta kale waxa weeyaan biyaha la cabo ee jigjiga aan ugu tala galay dadku inay cabaan cabitaan kaliya looma isticmaalo xilligan guryaha laga dhisaa dharka laga maydhaa waxyaabihii warshadaha isticmaala waxaan ku fikiraynaa inaan sameeyno biyo xidheena yar sanadka soo socda kuwaas oo loo isticmaalo ugu yaraan dhismaha guryaha ugu yaraan dharka waxa laga yaabaa lagu dhaqanayo cabitaanka waxa ka soo hara in loo isticmaalo laakiin hadda bardanka biyaha magaalada jijjiga haysta fooqa la dhisayna waxa laga dhisaa biyaha ay dadku cabilaayeen saasoo kale gurigana saas warshaduhu waxaas bay ku shaqaynayaan waxyaabaha aan domestic ahayn ama biyaha afka loo isticmaalo ahayn oo dhan waxay culays ku hayaan maxaa la yiraahdaa biyaha dadku ay cabilaayeen ee nadiifta ah bay culays ku hayaan kuwa mustaqbalka inaan dadaalo ka sameeyno weeyaan guud ahaan waxaan rabaa inaan dadka u sheego dad badan baa raba inay ka faa'iideystaan caqabadaha biyaha caqabadaha shidaalka caqabadaha gaadiidka iyo guud ahaan dhaqaalaha isbebedelaya ee dal ahaan iyo adduunka isbebedelaya kuwaas waxaan leenahay ma jirto ama meel idinka bannaan inaad ka heshaan fursadahaas magaalada ka jira dadka cabashooyinka qabaan inay xafiisyada keenaan si dhab ah looga jawaabi wixii aan laga jawaabi karayna shacabka iyo dawladdu inay si wada jira uga shaqeeyaan baan soo jeedinayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin